kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka duhur ee xulashada warka qodobada aad ku daawo doontaan waxaa ka mid ah ciidamada midowga Afrika ama Soomaaliya sheegay inay dishay xubno sare oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ka weerar ay ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland ayaa la sheegay inuu ku socdo jidka xilka laga qaaday gudoomiyaha asaga xilka ugu horeeyay ee Cabdixakiin Maxamed Axmed Roobadaareed xawiyaha guud ee qaramada midooba ayaa si adag u hadlay xaaladda gobolka Gedo iyo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ee geesay qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland warar kala duwan ayaa ka soo baxay qarax lagu dilay gudoomiyaha gobolka Mudug oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee dhanka maamulka Puntland intaas aad daawateen daawadayaal waxaan qodobada ugu dooran warka duur ee xulashada warka goor u diyaar garooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan daawade haddana ugu cusubtaan ugu soo biir oo subscribe sare channelka si mar walba aad ula socoto wararka iyo xogaha halkaan ku soo daawano warsaxaafeed ka soo baxay taliska ciidamada AMISOM ayaa waxa looga hadlay isla markaasna faahfaahin looga bixiyay dagaal jimci la soo dhaafay deegaanka Qoonqaan ee gobolka Jubbada Hoose maamulka Jubbaland ka dhacay kadib markii ururka Al-Shabaab ay dhowr jeer ka weerareen saldhigga ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin gudaha deegaanka Qoonqaan ee gobolka Jubbada Hoose maamulka Jubbaland ka tirsan qoraalka ciidamada midowga Afrika AMISOM waxaa lagu sheegay in ciidamadooda ku sugan balliga Qoonqaan ay joojiyeen weerarkaasi isla markaasna qasaare culus ay gaasiyeen xubnihii Al-Shabaabka ahaa ee saldhiggaasi weeraray ciidamada midowga Afrika AMISOM ayaa warsaxaafeedkooda waxay ku sheegtay in dagaalkaasi ay ku dishay 3 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaasna kuwa kan nolosha ku qabteen sidoo kale waxay shaacisay in qoryaha AK-47 iyo rasaas fara badan ay ka furteen dagaalyahanada weerarka soo qaaday sidii hadal ku dhigtay ciidamada midowga Afrika AMISOM warsaxaafeed ka soo baxay qaybta howlgalka midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Bilis Qoonqaan ayaa jimciile joojiyay weerar lagu qaaday ciidamada amniga maamulka Jubbaland kaasoo lagu dilay laguna qabtay dhowr argagixiso ciidamada midowga Afrika AMISOM ayaa gacanta ku dhigay dhowr qori oo AK-47 ah iyo rasaas fara badan oo ay ka heleen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo lagu go'doomiyay inta lagu jiray weerarka ayaa lagu yiri warka midowga Afrika AMISOM ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska ciidamada midowga Afrika AMISOM ugu dambeyntii taliska guud ee howlgalka midowga Afrika AMISOM ayaa ciidamada Kenya ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika AMISOM ku amaanay sida ay uga hortageen weerarkaas oo talisku sheegay inay ku dhaawacmeen oo kaliya 2 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland ee ku sugan deegaanka Qoonqaan oo gobolka Jubbada Hoose maamulka Jubbaland ku sugan guddoonka golaha wakiilada ee maamulka Puntland ayaa shaaciyay in kala fadhigii 46aad ee golahaasi uu furmi doono 15 bishan ee soo socda ee June ayadoo lagu wargeliyay dhammaan xubnaha baarlamaanka maamulkaasi gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa sidoo kale xalay wax xildhibaanadu la wadaagay ajandayaasha ugu waaweyn ee kala fadhiga 46aad kaas oo ay ku jiraan qodobo mid ka mid ah uu yahay kuwa xilka uu ku waayay gudoomiyaha isaga ka horeeyay ee Cabdixakiin Maxamed Axmed Roobadaareed isla markaasna isku qabteen madaxweynaha hadda xilka haya ee Saciid Cabdullaahi Deni ajandayaasha la soo bandhigay ayaa waxay xulashada warka aragtay waxaana ka mid ahaa kuwa soo gudbinta wixii heshiisyo ahaa oo ay gashay xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni la xisaabtanka xukuumadda uu hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Deni 3 dhamaystirka iyo ansixinta maxkamadda dastuuriga 4 ansixinta mas'uuliyiinta u baahan xasaanasiinta golaha wakiilada iyo 5 dhaqangelinta qodobada ka soo baxay shirkii watashiga maamulka Puntland kaasoo ku soo dhawaaday magaalada Garowe xarunta Puntland dhammaan qodobada la soo bandhigay oo ah kuwa culus gaar ahaan soo gudbinta wixii heshiisyo ahaa ay gashay xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni iyo la xisaabtanka xukuumadda ayaa farta si aad ah lagu fiiqay maadaama ay Deni hore isku qabteen Cabdixakiin Maxamed Axmed Roobadaareed kadibna dagaal siyaasadeed meesha looga saaray gudoonkii baarlamaanka maamulkaasi dadka adarso arrimaha siyaasadda maamulka Puntland ayaa sheegaya in tani qayb ay ka tahay shaqada baarlamaanka isla markaasna ay muhiim tahay in la xoojiyo la xisaabtanka xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni Puntland oo maamulka ugu horeeyay oo ka aasaasay Soomaaliya waxaa muddooyinka ugu dambeeyay soo baxay khilaafyo u dhaxeeya madaxda maamulkaasi oo ugu dambeeyay kan laga soo warinayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Axmed Karash kaasoo la sheegay in hadda uu gaaray meesha ugu xamad fargelin dawladda federaalka Soomaaliya ay sameystaan la sheegay in isku qabteen khilaafkaasi iyo xilka qaas lagu sameeyay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada madaxtooyada maamulka Puntland ee Garowe xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Gedo maamulka Jubbaland wuxuuna sheegay inuu si xoogan u cambaaranayo dhaqaaqyada ka jira gobolkaasi u dhaxeeya dawladda federaalka ee maamulka Jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland
Antonio Scooter waxa uu sheegay in ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya bishii February ay geysay gobolka Gedo ay sababtay isku dhacyo iyo xiisad dagaal oo hor la oo gobolkaasi ka aloosma sidoo kale waxa uu tilmaamay in dagaalada ugu dambeeyay dhex maray labada ciidan ay waxyeello ka soo gaartay dad shacab ah isla markaasna dad kale lagu barakiciyay waxaan aad ugu walacsanahay isku dhacyada hubeysan ee ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ka dhacay gobolka Gedo Jubbaland kaasoo sababay khasaaraha iyo barakac dad shacab ah ayuu yiri xogayaha guud ee qaramada midoobay waxaa sidoo kale ugu baaqay madaxda dowladda federaalka iyo guud Jubbaland inay joojiyaan xiisada ka jirta koonfurta Soomaaliya si looga hortago rabshado kale oo gobolkaasi wajaho Antonio Scooter waxa sidoo kale la filayaa in mowqifkiisa ku aadan xaaladda cakiran ee gobolka Gedo oo ka cadeeyo khudbad uu ka jeedin doono shirka golaha amniga qaramada midoobay oo dhawaan furmi doona ugu dambeyntii xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay heshiiskii dhawaan laga gaaray khilaafyada ka jiray magaalooyinka Dhuusamareeb oo Galmudug xarun ah iyo sidoo kale magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ee maamulada Jubbaland iyo Galmudug ugu yaraan 2 qof oo shacab ah ayaa lagu soo waramayaa maanta inay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan ee gobolka Banaadir qaraxan oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fofog laga hago ayaa waxa laga badmaameysaday gaari Cabdibilaah oo maray inta u dhaxaysa isgoyska Tarabuunka iyo isbitaalka Digfeer ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir warar aan helnay waxay sheegayaan in wax khasaare uusan soo gaarin ciidamadii saarna gaariga Cabdibilaah ee qaraxaas lala eegtay balse waxyeello ka soo gaartay dad shacab halkaasi ka agdhawaa ilaa hadda ma jirto wax war oo ka soo baxay laamaha amniga Soomaaliya ee ku aadan qaraxaas maanta ka dhacay isgoyska Tarabuunka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir sidoo kale ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda wararkaasi qaraxa loo adeegsaday ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir amniga Muqdisho ayaa muddo u dambeeyay ahaa mid degan marka la eego qaraxyada hore uga dhici jiray inkastoo marka qaarkood ay dhacaan falid ku amnad galiyada Muqdisho u badan dil qorshaysan kuwaas oo qaarkood ay sheegtaan ururka Al-Shabaab سلمنا قرح قيست قصار حوق له وحمانته كدعي مقالة قال كعي وحرمته قبل كمدوق إسلام كاسنا هردن كمام الكاس بنت لنا ور عن هلي إنه أنكرنا قال كعي وقبل كمدوق وعيش شيء يعني إن قرح حقن مانته وقوية مقالة سلوجد اللي قدامه قبل كمدوق يسد حسكري ولا سعودية إسلام كاسنا كدعي ماله وحرمته قبل قال كعي هردن كبنت لنا قرح aan helino wararka qaraxaasi wararka aan keenay waxay sheegayaan inuu ka dhacay aaga xarunta maamulka gobolka Mudug ee Puntland isla markaasna uu jiro qasaare dhimasho dhaawac sida loo xaqiijiyay xulashada wararka qaraxaasi wax ku geeriyooday gudoomiyaha Axmed Muuse Nuur Yare oo ku sugnaa xarunta gobolka oo u dhow madaxtooyada maamulkaasi sida ay noo xaqiijiyeen taliyaha qaybta gobolka Mudug Muumin Cabdi qaraxaasi waxa fuliyo qof waxyaabaha qaraxaas ku soo xirey isku qarxiyay xarunta gobolka horteeda ciidamo fara badan oo ka tirsan Puntland ayaa gaar halka qaraxaas ka dhacay waxaana ugu socda gurmad kala duwan oo loo fiidanayo dadka waxyeello ka soo gaartay qaraxaasi daawadayaal intaas ayaan ku soo koobaynaa warka duur ee xulashada wararka hadaan ugu soo daawadan ugu soo biiro channelkan subscribe si aad mar walba aad nala socoto aan u heshan xogaha iyo wararka ugu dambeeya Soomaaliya oo halka mar walba aan ku soo daamaan kulanta wanaagsan daawadayaal nabadgelyo